inta bura qarta wana naga xilay ku soo dhawaada warka wacdiga qodobada maanta aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya xariga ka jaray safaaradda Soomaaliya ee Washington xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ku xayiran Kismaayo xukuumadda Soomaaliya fariin muhiim ah u dirtay maalgashadayaasha Qatar shir looga hadlayay ka faa'iideysiga shidaalka Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay Addis Ababa taliye cusub oo loo magacaabay howlgalka midowga Yurub ee xeebaha Soomaaliya qodobada dibadana waxaa kamid ah doorashadii dib u dhacday Afghanistan oo maanta loo dareeray intaas waxa ahayn qodobada aad ku daawan doontaan maanta warkeena ku soo dhawaada isaga faahfaahsan haatan qodobka ugu horeeya warkeena wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Sadiq Xirsi Warfaa oo booqasho rasmi ah toddobaadkan ku tagay dalka Qatar ayaa ugu yeeray maalgashadayaasha Qatar inay sahmiyaan fursadaha maalgashi ee Soomaaliya kadib kulan Arbacadii Dooxa kula qaatay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Qatar kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka sida oo xukuumadda iyo maalgashadayaasha Qatar ee door muuqda uga yeelan lahaayeen jawiga maalgashi ee Soomaaliya iyadoo kulanka uu goobjoog ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali Taano gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee rugta ganacsiga Qatar Maxamed bin Ahmed bin Tawar Al-Kuwairi ayaa sheegay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka Qatar ay daneynayaan in la xoojiyo iskaashiga labada dal iyo in la aasaaso iskaashi shirkado la wada leeyahay oo dan u ah labada dhinac waxa kale oo hoosta ka xariiqay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay Soomaaliya ka fulin doonaan mashaariic ballaaran kuwaas oo dib loogu dhisay dalka isagoo inta ku daray inay qaadan doonaan shaqaale Soomaaliya kuwaas oo fursado shaqo ka heli doona dalka Qatar dhankiisa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya mudane Sadiq Warfaa ayaa bogaadiyay iskaashiga dhow ee ay Qatar la leedahay dowladda Soomaaliya wuxuuna cadeeyay in ujeedada socdaalkiisa Qatar ay la xiriirtay sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo bandhigida fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya iyo sidii iskaashi dhow uga yeelan lahaayeen labada dal kor u qaadida aqoonta shaqaalaha iyo kobcinta xirfadooda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda diblomaasiyiin Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Mareykanka ayaa xarga ka jaray dhismaha cusub ee safaaradda dalkeena ee Washington ku yeelanayso madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa sheegay in hirgelinta dhismaha noqonaya dhismihii safaaradeed ugu horeeyay dowladda Soomaaliya ay ku yeelato dalka Mareykanka oo muujinaysa muhiimadda dowladda ay siinayso soo celinta maqaamka dalkeena ku lahaa caalamka madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku booriyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka inay wada shaqayn dhow la yeeshaan diblomaasiyiinta safaaradda isagoona tilmaamay in dhismuhu uu yahay hanti ay leeyihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa muujiyay dadaalada ay dowladda ku bixinayso soo celinta qabka iyo sharafka dadka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen caalamka haatan la qorsheynayo in si lamid ah talaabadan ay dowladdu u dhameystiri doonto dhismaha iyo dayactirka safaarado kale ay Soomaaliya ku lahayd dalal kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku xayiray magaalada Kismaayo ku meel gaarka oo ah caasimadda maamulka Jubbaland kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa halkaas xildhibaanada baarlamaanka ee ku sugan Kismaayo ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xiriirada dowladda federaalka Soomaaliya ee saartay duulimaadyadii halkaas tagi jiray iyo kuwii ka iman jiray sidoo kale xildhibaanada xayiraan ayaa waxaa la sheegayaa inay doonayaan inay magaalada Muqdisho soo gaaraan hase yeeshee aysan jirin wax duulimaad oo tagay xilli dhawaan lagu wado inuu furmo kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya war lagu kalsoonaan karo oo la helay ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada ku sugan magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka oo ah Jubbaland ay yihiin kuwa aad ugu dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe isla markaana halkaas tagay xilliga ay socdeen doorashooyinka maamulka Jubbaland midowga Yurub ayaa shaaciyay in General Antonio Guterres uu soo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka badda midowga Yurub ee loo yaqaan Navy Force Atlanta ee la dagaalanka burcadbadeed ee ka qowleysatay xeebaha Soomaaliya taliyaha cusub oo u dhashay dalka Spain ayaa wax xilka la wareegi doona bisha October ee soo socota sida lagu sheegay hadal ka soo baxay golaha midowga Yurub howlgalka Atlanta waxay gacan ka geystaan ka hortagista falalka burcadbadeed iyo kooxaha hubeysan ee ka dhaca xeebaha ka baxsan Soomaaliya waxa kale oo taageerayaan howlgallada kale ee midowga Yurub iyo barnaamijyada ay ka wadaan mandaqada haatan qodobkii dibadda shacabka Afghanistan ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaas ololaha doorashada madaxweynaha ayaa waxaa carqaladeeyay weerarada dad badan ay ku dhinteen maalmo kadib markii madaxweyne Trump ku dhawaaqay wada xaajoodka nabadeed ee Taliban iyo Mareykanka u dhaxeeyay inuu fashilmay
natiijada rasmiga ah doorashadan maanta dhacaysa ayaan si dhaqso ah loo shaacin doonin waxay dad badan qabaan in arrintani sababi karto qalalaase siyaasadeed oo hor loo dimuqraadiyadda Afghanistan dhaawac u keena tobanaan kun oo ciidamada nabadgelyada ayaa la dhigay goobaha codbixinta ka dhacayso ururka Taliban ayaa wacd ku maray inay weeraro ku ekeyn doonaan goobaha codbixinta ka socota doorashadan ayaa laba goor oo hore dib loo dhigay ayaa ku soo beegmisay iyadoo bishii hore ay fashilmeen wada hadallo nabadeed oo ay lahaayeen Mareykanka iyo Taliban afhayeen oo hadlay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Zabi Saadaat ayaa wakaaladda AFP u sheegay in codbixintu ka dhacayso dalka oo dhan waxaana sheegay inay ku faraxsan yihiin shacabku inay durbadiiba safaf dhaadheer u galaan si ay iyagoo ku haween inay codkooda dhiibtaan intaas ayaa ku ekeynayna warkii aad kala socoteen Wacyi TV tan iyo kortin dambe amaanad